السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان إذا الهانتين ومال كستا دنيا كجبتان سومالي محمد عاد بايدي سلامي وأنا جوا اللي بان هذا علي اللي عاد وحارب هالكارينا أدي نقوم هذا عليو دمان ومد الصوماليات كنا المقدس سيبا دنيا رضا وحتى هو يقدر بس الحركة هو الصوماليات يعرضي أو كسمايك ما هذا قلب كان ديرينا كبد inkastoo taas aysan ahayn kubadda dheero anaga leen mani rag national teamka micnaha u caalamiyeynaayo aan bulin u dheelay anaga ma ahayn waayo waxaa jira garoomo waaweyn oo caalamka ku yaala oo mararka qaar waxyaabahan oo kale laga sameeyo oo wadankaas dadka caanka u dhashay dhan garoomadaas waaweynka ayaa loogu qabtaa marka aniga waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dhalinyaro fara badan oo social media aniga ka arki jiray qaarkood aniga iga qoslin jiray adiga ka qoslin jiray inaan haddana hal meel isku kaan taasi waxa iga sii farxad badneed indhay waa dareemaysiin inta dhafarka saddex habeen oo caawa markii lagu daraa ay saddex ku noqonaysaa indha isma gelin farxad darteed fiidiyowga wuxuu idii soo gaari waayay waxa ay tahay oo waxaa la rabay ciyaarta markay dhacdo kadib in haddana aan ka soo hadlo waayo waxyaabo badan meesha ka dhacay anaa goobjoog ka ahaa dad badan naga maqan oo waxyaabo qaldan loo gudbi karaa marka waxaa la rabay ninka caddeyn lahaa waa aniga inaan marka soo hadlo laakiin waxaa la soo hadli waayay waxay ahayd aad iyo aad u farxay wallaahi saan u farxay aan u farxay waayo garoonkii ugu weynaa Africa Stadium Muqdisho isbartiibada oo qaada 65,000 oo ruux ayaa waxaan garoonkaas ka dhimay 65,000 waxa ka dhimay nyaq intaas leeg amu waxaa ku qiyaasi karaa walaa ma qiyaasi karay garoonkaas 65,000 ee ruux qaada ayaa waxa ka dhimay intaas in leeg سادة مدة كلا أنا قررت بنوني ما بديلين بقى بنوني ما بديلين صوت أنا بنوني ديني واي إذا كنت غني وايو أتيشن كي قدنا وحوها إذا كان أنا يقفر حسين سقرح دون يسود ويسين سيبنا يرى الصومالية يا الحمر وحان لا هاي ما أحكر كيسا يسارين توالي عيارتي حتى 45 دقيقة aheyd halkan bibis adilne 45 kale shacabka dhino waan ku faraxsanahay kama xumin waliba anaga gool kula lahaa waayo askarta Soomaaliyeed ee garoonka joogtay way xakameyn waayeen shacabkaas waayo sababta waxa xakameyn waay waxay tahay jaceylkoodii ay aad u farabadsay that's why dhalinyarada markaas garoonka soo galaan anigana igu dhigay sidoo kale waxa aad iyo aad iga khusriyo walaalkay Baaquli Boy waa la orday oo soo orday dhaawac ay gaar u dhulka ku dhacaan asoo hiiraagay arkay ku haay maya haddaan been la sheegayn haddii rigiska celis meel la iska dhigayo iyo taageernimo haddii meel la iska dhigayo ninkan Axmed
والله باقول بو iga qosliisa galabkaas sidoo kale waxa aad iga qosliyo waa sheeko kale asagana بدل لو كان ترى وكسر طفل ستاو وجارسي وأنا أصلا قف ودعي وحنود دعي أرت كل بنوني مهن كاس يوثقها كلن أنا فن إن إليك قصيم بوليعة تعبريج اسمع كمية أبو قعنتي يو هيستعملها يلوكت يستعملها عبريج اسمه عسل أنا بنون واقعنا من بدنا أي قانا ريول ذاك ريورت النبضة رياكشن لا أي قانا قانو ديارسنا ahaa laakiin maalinta garoonka waxaan jeclaystay oo ku soo tashanay inaan micna idinka qosliino oo maalintiina sameeyno maadaama timekiina anaga aan nasiisan galabkaas jimcaha waxaa idin leeyahay suma wallahi waa dhaartay garoonka markii dhalinyaradii ay soo wada degeen waxa u haysateen aniga in gacan la qaaday wallahi suma wallahi inaan gacan la qaadin dhalinyaradaasna waxay ka jecel laabta isgelinayna hal wiilo yar oo waxa jiray bas oo qoorteeda gaari waayay oo dhuunta bocorka halkaas gacantiisa iga dhacday anoo marka bocorkii marka saan u foorsadana iyo dhalinyaradii markaas igu wada imaaday iyo askarigii isla markii hoosta iga jiro xabadii kor u riday marka ana horta waa ka xumaa in meesha xabad ka dhacdo laakiin waa wax micnaa markaas ugu kala celinayay shacabka iyo anaga laakiin aniga boqolkiiba boqol oo ku faraxsanaa inaan shacabkayga la kulmo waxaan dhan liicad taageeri islaamiya macnaha ma ku naxsantaadi hal qof laba qof saddex qof amalaak soo qayb galaas ku dhaana Afrika waay anigana ay arkaan garoonkii stadium Muqdisho saas u weyn yahay inaan ku wada kulanno aniga farxad ay ahayd sidoo kalena waxaa soo socoto insha Allah hees aan u qaadan Muqdisho ayaa komisyon soo ah oo aan ka shaqeynayay iyo heesa kale waxaan rajeynayaa waqtiyada soo aadan inaan hool aad u weyn oo qurux badan idinko labisan iyo anagoo labisan ba aan isku wada imaano halkaas markaas aan habeenkaas ku wada caawino toobeyno sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhalinyaradii askarta ahaa ee markaas garoonka jooga amnigeena sugayay iyo taliyaha warta nabadda oo asagana markaas garabkeena ahaa Allah idin sharfo waxaan leeyahay dalkeena ilaa hadda xabeebta galabkaas oo qiimeynay waayo shucuurteeda aad iyo aad u kacsaneed zaid waliba u kacsaneed waayo waxaan arkay indhiga meel aan fiiriyo shacab iyo wada qoslay iyo wada doola cadeynaya jaceelkiina waxa ka arki jiray oo kaliya community-ga laakiin jaceelkiina markaan waa ay tusteen ilaa heer aniga idinkaba aan laabtiis gelino inkastoo de intaas kun oo qofood aan laabta aan gelin karaa laakiin qalbiga ayaan laabta idinka geliyay iyo dhalinyarada yaryaraha ee ciyaarta ayadoo socota ayadoo askar taaganta u bareeray in aysan kursigooda fadhin ay soo degaan ee markaas aniga iimaanay Allah idin sharfo wadankeena markaa maanta si fiican u fiiriyo wadanku wuxuu noqday dhalinyaro noqday wadan dhalinyaro noqday waxaan rajeynayaa madaxdana insha Allah inay dhalinyaro isku bedesho wada daacad ah sidaan noogu soo wada xaadirteen garoonkaas aan noogu wada imaadeen ee sharfan ee quruxda badanna dhammaantiin waa idinkaga mahadcelinayaa niyadda idinka jeclahay sidoo kalena waxaan u mahadcelinayaa hooyadii Soomaaliyeed iyo caruurteedii ee markaasi garoonka iridiisa taagnaa ee askarta ii sheegeen inay maamadaas u tag ayadii caruurteedu Kismaayo kaaga imaadeen iyo sidoo kale maama Easter ayadana oo markaasi elaboorka maalintii inay ka saartay meel cilaah ee hoolka sahal ii taagneed iyo hooyooyinka Soomaaliyeed oo dhan ee markaas garoonka wada joogay wallahi billahi ta'ala al-azim maalintaas haday aaminaysiin aniga funaanadeedu waa siibay funaanada kale waa laga siibay all markaas iska qiirooday ilin iyo soo daadatay samcinaha halkaas dhalinyarada Soomaaliyeed igu muujinayeen inaha jacaylka aniga ii qabaan waxa idin leeyahay anigana saa idin jeceshiin aan idin jeclahay
sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa astaan TV oo ayadana kaalin weyn ka qaadatay barnaamijkan. waxaan kaloo u sii mahadcelinayaa walaalkay qoslaaye oo ah wariye ka tirsan astaan TV oo anoo Turkiga joogo aan isbaranay oo aan ku insha Allah Muqdisho aan imaan doona. waxaan ay balan qaadin astaan ugu soo dhaweyn doona. astaana si fiican ay qaabileen. waxaan idin leeyahay hawshin halkaas ka sii wada, dalkana waxaa waa quruxdiisana aan ka wada talino. walaal waxa sameeyaa ma aqaan aad ay qiirigeliseen boqolkiiba boqol aniga Soomaaliyeed. Allah idin sharfo, idin jeclaa wixii dhacay ma u jeedin, aniga ma u jeedin. aniga garoonkaas badmaana dheelin, suma wallahi badmaana dheelin. aniga attention-keygu dhan dhankiinu ahaa. labada wiil ee markaasi dadka shacabka calanka la dhex ordayay aniga garoonka ka dhex saacbinay. waa taagnaa kubaddu iska kiciyay bas farxadii ay iga badatay. tamar aan ku ordumaan lahayn, tamar aan kubad ku baasmaan lahayn. waxa kaliya i dareemi karay referee markaasi agteeda maray lii maxaa kugu dhacay way leeyahay. markaas aan dhaama dheeli karay. markaas sawaxankiini iyo sacabkiini aan maqlay. sidoo kale waxaan leeyahay Soomaali ha noolaato. Allah idin sharfo, idin jeclahay, dartiina u soo jeeday oo ilaa al'aankan aan u saddex oh my goodness ilaa al'aankan waa seexan lahay wallahi alcadiim. Allah idin sharfo. haddeertaana waxaan rajeynayaa waqtiyada soo aadan hees ah idinkugu talagalo qalbigeyga kasoo go'do wadankeyga ugu talagalay ayaa soo socoto. heestaasna waxaa lagu daafuri doonaa insha Allah showga aan mar dhow soo shaacin doono. iga raali ahaada haddii dhalinyaro oo markaasi aniga garabkeyga ahaa aan iloobay inaan u mahadceliyo. waa i dareemi kartiin maanta waxaa iga farxad badan ma jiro. dalkeygaan joogaa, shacabkeyga ilaa ii soo baxay, dhalinyaradii markaas ayagana aan codsigooda bustay ayagana caanka ahaa ee garoonka soo xaadirin. waxaa idin leeyahay saaxiibayaal dhammaantiin waa ay sharafteen. Allah idin sharfo. wadankeena aan quruxsano, wadankeena aan bilicda uu leeyahay aan soo gudbino oo caalamka aan tusno. aan noqono dhalinyaro markaas wadankooda haga yaan ka daba deysan dee odayaasheena hore. markaan wadanka annaga iska leh, annaga aan quruxsano, annaga wax bedeli karno. sidoo kale waxaan rabaa wax yariis oo fikrada inaad ku darsado oo ah tuuryada dhagaxa iska daaya. nooma roono markaad dhagax qabsanaysid oo intaasoo qalqi oo Soomaali ah aad ku tuuraysid. wallaahi ma qurux badno. damiirkaas halkan kugu jiro ee dhagax ina u qaadid aad shacabkaaga tuurinaysid wax qurux badan ma aha. waxaan leeyahay inta qof markaasi meeshaas anima ogi ku dhaawacantay. waxaan idin leeyahay Allah idin caafiyo, igana raali ahaada lii ahaan. laakiin iska bedela tuuryadaas, iska bedela. ma qurux badna. maanta dalkeena hor u socdaa, wuu dhismooyaa, aad u dhismaayaa. aan noqono dad mar walba meesha loogu wacaa si qurux badan u taga, si qurux badan ugu soo laabto. sidoo kale xiriirka Soomaaliyeed aan rabaa hal fariin oo diro. anaga ma kubad maana dheelin, mana nihin rag maanta national team u dheeli kara maana nihin. laakiin waxay ahayd inaan shacabkeena aan farxad la qaadano maadaama ay naga arki jireen TikTok, YouTube iyo meelahaas. in hal meel markaasi aan iskugu keen dhalinyaradaas ee shacabkeena nagu wada arkaan ayuu muhiimadeena ahaa. iga raali ahaada liigii hali jiray marnama hadalka aan gafi jirin. maanta u jeedin in hadalka xitaa aan la jaraynayo waayo waxaa iga keenaysa farxadda waan idinka dartii. fariinta u diray waxay tahay xiriirka Soomaaliyeed. garoonkeena istaadiga Muqdisho aad u qurux badan yahay, aad u weyn yahay. waxaan idin leeyahay anaga kama hadlooyi, anaga iskama hadlayno oo garoonka ku jirnay iska falfalaadayay. waxaan ka hadlayaa lacalla waxaa laga yaabaa maadaama wadankeenu si fiican usii dhismaayo in qaran kale dariskeena uu wadanka yimaado. marka biraha gaagaaban ee istaadiga Muqdisho ku xiran macquul ma noqonayso. waayo Soomaaliya gool dhalin kartaa yaa waay marka qofka damiirka leh kursigiisa fadhinaa
أفرنا meeshaasna military xitaa wax kama qaadaan shacab military ma celiyaan marka waxaa leeyahay shabaqyo dhaadheer markaas jaraanjarta iyo garoonka u dhexeeya in la sameeyo sida Bundesliga oo kale intaas oo ku darsanaya xiriirka Soomaaliyeed haddii fiidiyogan macalla uu soo gaaro wax kale ah idin ma aqaan waxaan rabaa kulan labaad oo aad u qurux badan inaan dhigano oo aan markaan anagoo labisan oo diyaarsan stage wada shactir laga sameynayo idinkoo hor fadhiya reedaas ma leeyahay insha Allah anoo haysto markaan Muqdisho meeshaas ku soo gudbiyay heesa kala badan oo aan soo wado oo idinka ay kugu tala galnay waxa idin leeyahay Soomaali waxaan one love Allah idin sharaf hadduu shacab dhaqaaqo garoonkii loo qulqulaye ileen garab walaaliyo warliicaata maayimi